سوبرك اسمايوي سرية بدوينيو وبيد السوسوم يا سابي صدركم من يستي بيرها سنتادا لما سين غيرك waxaan ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee qurbaha aaday sagaashameeyadii runtii Kismaayo waa magaalo fiican waxyaabaha aan ku amaanay Kismaayo waxa ka mid ah nabadda oo aad socon karto meel walba kaliya mari karto oo aysan jirin maxaa la dhahaa halashan wax baaritaan ah iyo maxaa la wax shaki oo aad maanta aaminsan tahay in sida xamal oo kaleeto walaa Cabdifataax oo Kismaayo waxaan ugu nimid ugu weyn 3 bilood la soo dhaafay magaalooyinka Soomaaliyeed ay uga duwan tahay ama ay kala mid tahay Hargeysa iyo magaalooyinka kale la midka waa amniga maamulka halkan jooga amnigu aad uga shaqeeyay waa meel amni ah waa magaalo xeeb weyn waa magaalo xoolihii joogaan wad ka helayso caanihii beertii iyo seafoodkii marka waa magaalo ka duwan magaalooyinka Soomaaliyeed inta badan caana fresh geel iyo xareysan oo 1 kiiloomitir jira qudaartii oo 15 kiiloomitir jirta iyo malaygii oo jira xeebta hadda nagu dhagan xeebta aan joogno maanta oo hotelkan ka dhisay runtii Kismaayo waa meel aad u qurux badan marka nabadeeda laga hadlayna aad waxaad moodaa inay uga gedisan tahay gobolada kale ee Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo kale marka joogtid anigoo fanaana kuma dhex socon karo si free ah wajigayga oo furan laakiin Kismaayo waa lugeeyaa marmarka qaar inta badan Kismaayo waa meel amnigeedu uu sidaas yahay waana meel aad cajiib ah marka aragtid sida ay u samaysan tahay waa magaalo xeebeed aad u qurux badan waa magaalo xeebeed isla markaana magaalada gudaheedii ay leedahay waxa ay leedahay jasiirada magaalada gudaheed ku yaala magaalada gudaheedii anoo u socda badda baawur qaatay waxaan maray badii labada dhinac bay iga martay baawurkeen wuxuu tagay meel jasiirada waliba gaariga uu tagay aan gaari ku tagnay ma hadoon waxaan dareemsaa marka aad jasiirada istaagtid biyihii badda oo ku soo dhacay jabalka waxay ku imaanayaan ayagoo dhibca sidii inuu roob kugu da'ay oo meelaha aan jeclaan lahaa mustaqbalkayga dambe hadii la yiraahdo Soomaaliya xagee degaysa aan ku noolaan lahaa taas waa qurxida waa jirtaa waxyaabaha aan marka hore filayno Kismaayo ku arkay waxa ka mid ah maxaa la dhahaa inay tahay magaalo jawigeeda uu yahay jawi aan habeen barkii dhaxan ku qabanayso duhurkiina kulushahay which is ala yaabay oo markay kulay jiro habeenkiina kulay baa xamar jira laakiin magaalo inta maalinkiina kulushahay habeenkiina dhaxantii aad leedahay mafnaad xirtaa ama aad weyn raadsanayso banaanka xataa aad fadhin karin waa actually waa ka yaaba waxa sida London oo kale waxa weatherka Kismaayo la iskuma hubo marka taasa ay cusub oo runtii maxaa la dhahaa noqotay weather isla aadan hubin wuxuu yahay runtii waa ku nabad qabnaa waa magaalo bad leh waa magaalo qurxan waa magaalo aan hadda anagoo nolol socon ama anagoo baqayn aan meel walba marayno waxaan jeclaan lahaa inay Soomaaliya dhan saan noqoto especially magaalada Muqdisho oo runtii cabsi badan iyo walwal badan mar walba laga muujiyo inaan meel qaarkood la mari karin alxamdulillah Kismaayo waa magaalo fiican waana ku faraxsanahay sagaashankii dawladna wadanka dib ugu soo noqday oo ka shaqeeyay 3 sano soo dhaaftay waxaan ka shaqeynayay ugu badnaan inaan hirgeliyo dhismo weyn dhismahan caawa aan wada joogno oo ah hotel 5 star ah magaaladan Kismaayo si dadka imaanaya iyo kuwa joogana cunno fiican uga helaan kuwa imaanayana ay helaan meel standard ah oo ay seexdaan taasoo keeni karta dadka Soomaalida kale inay dhiirigelin ku samayso inay dhisaan dhismayaal fiican iyo maalgelin warshado aan ku noolaan lahaa taas waa qurxida waxa kale oo emotional cajiib ah oo aad cajiib ah xeebtii baad joogtaa markaad badda ka soo baxdo intaadan soo soconin 100 talaabo waxaad galaysaa ciidii guduudnayd isla markaa xoolihii baa jooga geeli arigii lo'dii baad arkaysaa oo nool oo soconaya waa wax cajiib aad u ah oo Kismaayo ay aad u dheer tahay